السلام عليكم. magacaygu Cabdilatiif Xirsi. waxyaabaha inta badan ay ku kala duwan yihiin dadka nolosha macnaha ka sameeya iyo dadka kale waxa kamid ah halka ay ku bixiyaan waqtigooda iyo tamartooda. marka muuqaalkan kooban waxaan ku soo gudbinayaa laba shay oo ay muhiim tahay inaad kala fahanto si aad u ogaatid halka waqtigaaga iyo tamartaadu ay ku baxayaan. waxa jira marka laba hayndaab oo kala duwan saameynna isku yeesha dadkuna kooxba hayndaab ay ku mashquusho. marka hayndaabka koowaad waxaa la yiraahdaa circle of influence, hayndaabka labaadna waxaa la yiraahdaa circle of concern ayaa la yiraahdaa. circle of concern kaaban ka bilaabayna waxaa la yiraahdaa waa hayndaab inta badan ay ku jiraan waxyaabaha qofku aanu xukumin ama inta badan qofku aanu tala ku lahayn oo qofka awoodiisa ka baxsan. hayndaabka noocaasa waxaa la yiraahdaa circle of influence, circle of concern ayaa la yiraahdaa. hayndaabka labaadna waxaa la yiraahdaa circle of influence. waa hayndaab inta badan ay ku jiraan waxyaabaha qofka bini aadamka ahi uu wax ka bedeli karo, uu saameyn ku yeelan karo, uu tala ku yeelan karo. marka inta badan waxaa la yiraahdaa dadka nolosha macnaha ka sameeya waxay waqtigooda iyo tamartooda iyo juhdigoodaba iskugu geeyaan ku mashquulka hayndaabka ay wax ka bedeli karaan ama hayndaabka ay talada ku yeelan karaan ee saameynta ay ku yeelan karaan. maxaa ka mid ah marka circle of influence-ga ama hayndaabka qofku uu wax ka bedeli kara maxaa ka mid ah? waxaa ka mid ah qofku hab fikirkiisu wax ka bedeli karaa, sida uu adduunyada u arkayo wax ka bedeli karaa, sida uu dadka ula macaamilayo wax ka bedeli karaa, caafimaadkiisu wax ka bedeli karaa, wuxuu wax ka bedeli karaa maankiisa ama mindsetkiisu wax ka bedeli karaa. all these things waa qofku wax uu awoodo inuu wax ka bedelo oo taladeeda iyo go'aankeeda uu leeyahay waa. dhanka kale dadka inta badan nolosha ka dhaca inta badan un iska nool laakiin waxyaabo badan oo faa'iidaha aan soo kordhin waxaa la yidhahdaa waqtigooda iyo tamartooda iyo inta ugu badan waxay uga baxdaa wax loo yaqaano circle of concern. circle of concern marka waxaa la yidhahdaa waa hayndaabka ay ku jiraan waxyaabaha qofku inta badan nolosha aanu waxba ka bedeli karin ama tala badan uusan ku yeelan karin. maxaa ka mid ah qofku inta badan biicadaas uu joogo kale muuqaalkay leedahay ama siday leedahay oo kale waxaa ka mid ah tusaale dadku sida ay kula muuqdaan ama dadku waxa ay ku oranayaan ama kelmadaha ay isticmaalayaan ama waxaad samaynaysa say uga falcelinayaan. all these things oo wax ka baxsan hayndaabka waxaad awoodo ama hayndaabka waxaad qaban karto. marka waxaa la yidhahdaa qofku hadduu inta badan ku mashquulo waxyaabaha aanu talada ku lahayn ama waxyaabaha aanu wax ka bedeli karin ama waxyaabaha aanu wax ka qaban karin hadduu ku mashquulo waxaa la yidhahdaa waxaa hallaaba qofku wuxuu wax ka bedeli karo, wax ka qaban karo, taladeeda iyo go'aankeeda uu leeyahay baa hallaabaa la yidhahdaa. cagsigana waxaa la yidhahdaa qofka hadduu ku mashquulo oo uu focus ka saaro oo uu diiradda iskugu geeyo waxyaabaha uu wax ka bedeli karo oo uu saameynta ku yeelan karo oo go'aankeeda uu wax ku yeelan karo si kooban baa waxaa la yidhahdaa waxa u hagaaga waxyaabaha qofku aanu talada ku lahayn baa u hagaagaa la yidhahdaa. sababtoo ah qofka markuu tusaale asagu isbedelo oo adduunyadiisii gudaha dareemadiisii mindsetkiisii habitiskiisii waxaas qofku waxaa la yidhahdaa markuu wax ka bedelo very easily waxaa la yidhahdaa qofka biicadiisa kale ama adduunyadiisa kalena waxaa la yidhahdaa isbedel baa ku dhacaa la yidhahdaa. marka you yourself waxaad isweydiisaa labadaas shay ee muhiimka ah ee qofka bini aadamkaahi lagu cabiro guushiisa iyo guuldarradiisa lagu cabiree ah waqtigiisa iyo tamartiisa halkeed ku bixinaysaa? so tomorrow haddaad rabtid inaad ogaatid halkaad joogto iyo halkaad tegi kartana of course waxaad fiirisaa waqtigaaga iyo tamartaada maanta halkee ku bixinaysaa, halkee aadayaan, halkee ku maalgelinaysaa. taa un eeg. markaan usoo laabano markaa dhallinyaradeena Soomaaliyeed markaan usoo laabano realitygu waxa waaye inta badan waxay waqtiga iyo tamarta iyo waxay hayaanba ay ku bixiyaan waxyaaba aanu taladooda aysan lahayn ama waxyaaba aysan waxba ka qaban karin sida maanta dhan inay ka sheekeeyaan ama ay ka waramaan ama waqti ku bixiyaan waxyaabaha adduunyadaas ka socda ee qofku markuu dib iskugu laabto aanu tala iyo go'aan midna aanu ku lahayn. marka that's so shame. thank you.